maxay gabadha goor ugu suurto gashay inay si fudud u qaado dubaha Thor ee culus. Filimka Thor Love and Thunder markii Thor uu gabadha goor u kaxaynayo dagaalka wuxuu sanduuq salkiis ka soo saaray dubihiisa Mjolnir. Arrinta la yaabka leh ayaa ah hubkan weyn wuxuu isu bedelay boombalo ay gabadhu ku ciyaarto oo sawiro lagu xardhay. Caadi ahaan laba nooc oo dad ah kaliya ayaa awooda inay adeegsadaan dubaha Mjolnir, kuwa qalbigoodu nadiifka yahay ee loo arko inay u qalmaan ama kuwa leh awood sixir oo ka weyntan odin laftiisa. Muddo dheer arrintani waxay ahayd mid madax xanuun leh, sidee bay gabadha yar ee goor ku buuxin kartaa midkoodna shuruudahaas. Xaqiiqdii awoodeeda ayaa si dhab ah ula mid ah tan hubka. Markii goor uu hor istaagay Eternity aakhiro sameeyaha oo uu dalbaday in gabadhiisa dib loo soo nooleeyo, u fiirso si qoto dheer humaageeda ka muuqda biyaha. Gabadha la soo nooleeyey ma aha qof caadi ah, waxay noqotay jidka rasmiga ah ee Eternity laftiisa. Eternity waa mid ka mid ah 5 awoodood ee ugu waaweyn koonka Marvel, kaas oo awood u leh inuu maamulo waqtiga iyo hawada sare, uuna xukumo caalamka. Sidaa darteed, markii gabadha goor dib loo soo celiyey, ma aysan ahayn bini'aadam iska caadi ah mar dambe, balse waxay noqotay awooddii Eternity oo muuqaal qof leh. Xagga awoodda waxay si fudud uga